الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal caaway waa habeenkii saddexaad nadwadeennii inoo socotay kulankeenii 12aad kulcilmiyaadkii 12aad caawaseen wada sugaynay waxaana ku qoran Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa cilmiga faraha badan iyo khayrkaas ay culimadu inoo sheegtay ilaahay inuu ku anfaco iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiisa xasanaadka ugu daro sideenii wanaagsanayd baan u dhageysanaynaa insha Allah ilaahay idinkii una weelaynayna arrimihii la soo gudbiyay oo ay gudiga masjidku soo gudbiyeen oo ay xasiloonida iyo in la fariisto iyo in dadka waaweyn la qadariyo intaasna insha Allah tacaala ayayna ka tagin intaynu masjidka fadhino aynu insha Allah tacaala xisaabsanno in ajar inoo soconayo oo khayr ku dhex jirno oo aynu fadhino meeshii ugu fiicnayd meel la fariisto meeshii ugu fiicnayd sheekhan si toos ugu soo dhaweynaya insha Allah qaybta damana su'aalihii bay gali doonaa haddii ilaahidmo walaalaha iridda taagan haddii ay boos waayeen banaanka banaan oo gogol shtaala haddii meel banaantana ha soo galeen insha Allah tacaala sheekhan ku soo dhaweynaya ku soo dhaw sheekh jazakallahu khayran. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد درسه عاوح كساب سيهي العلم ودوره في بناء المجتمعات أقونت يدور كما waxa ay ku leedahay kaalinta ay ku leedahay dhisidda bulshooyinka warkooban marka aad tilmaamo wuxuu noqonayaa inuu idhaahdo dunida tan waxa ilaahay dhigay subxaanahu wa tacaala asraara kownku bay dhahaan waa khazaana mali'atun bilasraar marka kownka waxa nimco taalla korkiisa iyo hoostiisaba iyo waqtiga labadaba waxa lagaga faa'iideeyaa inta aqoon la hayo sawgeed marka ay tilmaamayaan cilmiga iyo qiimaha uu nolosha ku leeyahay waxay yiraahdaan idaa aradta dunya fa alayka bil ilm wa idaa aradta al aakhirah fa alayka bil ilm adduun hadaa doonayso aqoonta ogow aakhirah hadaa doonaysana aqoonta ogow labaduba waxay ku xidhan yihiin aqoon waxaan isku dayayaa markaa maadaama waqtigu aad u kooban yahay inaan tilmaamo ru'uus al-aqlaam inaan meel fog istaago oo wax ka tilmaamo koo waxaanu tilmaami doonaa qur'aanka iyo sida uga warramay cilmiga أهم أدوات الخلافة في الأرض بين هذا العلماء إن لك بني آدم كو خلافة كسمعية ودقو أقب كوغوين وباهن بين هذا إلهي وسيي ملائكة اللوغو سجود سيي اللوغو كرامي آدم وعلم غير هذا آدم ملائكة كما بدنين تصبيحي عبادة هنا iyo quwa khaariqo watay laakiin waa qoontii cilmiga hidaa la siiyay subhanahu wa ta'ala sawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay wa'allama aadama al-asmaa'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaa'ika faqala anbi'uni bi asmaa'i haula in kuntum saadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim culimadu waxay yiraahdaan marka aadam wixii koowaad la soo siiyay ee mu'ahalka uga dhigay inuu dego dhulka kan waxay ahayd aqoon nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu soo diray loogu talagalay dunida inuu bedelo risaaladii ugu dambaysay ee qiyaam saaca joogaysa loo soo dhiibo
أول آيات lagu soo dejiyey waa shanta aayadood ugu horeeya سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ونصوص كورميسا قراءة هي علمي هي قلم كورميسا علماء يدادان afarta suuradood ee ugu soo hordegay qur-aanka bay yidhaahdaan waa suuradda tan iyo mudathir iyo muzammil iyo nuun walqalam way isweydweydaariyaan say u soo kala horreeyeen laakiin un afartaa waxa ka mida baynu leenayana nuun walqalami wamaa yasturuun ilaahay subxaanahu wa tacaala uu iyana inoo tilmaamayo uu ku dhaananayo qalinka iyo wamaa yasturuun ay maa yaktubuun qalinka iyo waxa la qorayo waxay culammadu yidhahdaan qur-aanku aalaafi lmawduucaat buu ka warramaya laakiin awal mawduuc nebi maxamed lagu soo dejiyo isagoo ummiyo aan waxbana akhrinin waxay ahayd qiraa'o iyo cilmi si awgeed bay culammadu yidhaahdaan waa muftaaxu haadihi dunya muftaaxu fahmi dunya walaakhira baa cilmiya weliba bay yidhaahdaan waxbarashada qaybta ugu adagoo qoraalka ah waxbarashada cilmi dhagood waa lagu qaadan karaa laakiin qaybteeda ugu adagoo ah qofku qoraal inuu wax ku sameeyo ayay nusuustani ka warramaysaa bale culammada qaarkood dee waxay sii tilmaamaanba kownkan ba ilaahay markuu bilaabayey qalin baa la abuuro la yidhi uktub si axaadiista saxiixii ku soo aroortay carabi wakhtigaa waxay ahayd cilmi waxa ugu dambeeya ay ka fekeraan aqooni agtooda may oolin khuraafiya jahli baa yaallay taariikhdooda camiiqaana kuma jirto aqooni laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku bilaabay qadiyat alcilm taasi waxay tilmaamaysaa bay culammadu leeyihiin ahmiyadda aqoontu ay u leedahay bulsho in la bedelo waayo nebi maxamed waxaa loo soo diray inuu bulsho bedelo inuu dunida isbeddel ka sameeyo waxay kaloo culammadu tilmaamaan ilaahay markuu nebi maxamed u manno sheeganayana wuxuu ugu manno sheegtay waanzala allahu calayka alkitaaba walxikma wacallamaka maa lam takun taclam wakana fadlu llahi calayka cadiima dayn war kooban tilmaamna waxay dhahdaan ereyga alcilm alcayn wallaamu walmiim iyo mushtaqaadkiisu 797 jeer bay qur-aanka ku soo aroortay waa iyadoo aynan tilmaamin erayada kale ama caqliga ama fikirka ama nadarka ama yaqiinka ama waxaa ka warramaya oo iyana erayo cilmiya ah sunnadana dee iyada tirabada kitaabka bukhaariga qura baa la yidhaahdaa 300 jeer buu ku soo arooray marka sunanka kale iyo kutubta masaanida iyo waxa kaloo dhan idan waxaad intaasi waxay tilmaamaysaa bay yidhaahdeen ahmiyadda cilmigu guud ahaanba u leeyahay waana wixii ilaahay faray nebi maxamed inuu ilaahay weydiistay in loo kordhiyo waqul rabbi zidnii cilma waana axaadiista saxiixisay tilmaamayso salaada subax markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tukado waa baryaba wuxuu ku ducaysan jirayna kan buu ahaa isagoo dabaqaya waqul rabbi zidnii cilma allahuma inii asaluka cilman naafica ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلاة صبح كاستقد الشيء إنه حديثك كان أخريه مسألة واحد كقرا كرتا إنه نبي وكش عليه الصلاة والسلام دوني دبا قيمة دون أقونتي وحيدا كلينا أنا قيمة بدل الله الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما أما وعالما ومتعلما adduunku inaanu qiimo samaynaynin ilaahay xuskiisa iyo cilmiga wixii ka soo hadha aadanuhu markaa loolan buu ugu jiraa noloshan siduu u guulaysan lahaa asaasu najaaxi lumamna waa aqoon sidaa ogeed baynu leenahay waa aadam markii la dooranayay wixii lagu doortay waa wixii koowaad nebi maxamed lagu soo dejiyey
dowladaha ugu waaweyn ee islaama ee soo maray dunida qur-aanku uu ka warramayna waa waxa ilaahay ku sifeeyey alcasr الdahabi lidowla alyahuudiya waa nebi daa'uud iyo sulaymaan markay joogeen iyo taaluut oo bilaabay casru dahabi waa saddexdaa boqor markay isku xigeen baa la tilmaamaa qur-aanku wuxuu kaloo ka warramay dhowrka nin ay culammadu yidhaahdaan duniday dacal ilaa dacal mareen ama dunida intii ugu badnayd bay qabsadeen dulqarnayn baa ka mid ah dhammaantood ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa aqoon weliba markaan hoos u tilmaamo aqoontaasi mid sharciyeedna way lahayd mid tanaynu maadiga ku sheegnana ama culumi xayaatiya culammada qaar yidhaahdaan culumta nolosha ku saabsanee kalena way lahayd sidaa awgeed ayaa reer banu israa'iil markay yidhaahdeen boqor baanu doonaynaa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu u tilmaamay waqaala lahu nabiyuhum in allaha qad bacaa lakum طaaluuta malika qaluu anaa yakunu lahu اlmulku calayna wanaxnu axaqu biاlmulki minh walam yu'ta sacata min almaal qaala in allaha اصطafaahu calaykum wazaadahu basطaة fi اlcilmi wاljism reer banu israa'iil markay yidhaahdeen boqor baanu rabnaa na dagaal geliya iyagu waxay moodayeen dee dadkan magaca ku dhexle ama xoolaha haysta ama kuwa in la dooranayo laakiin ilaahay mid kale u doortay oo ah lagu tilmaamay ciidan hogaamintii waxa ay u baahnayd inuu leeyay cudud iyo laxaad iyo aqoon baa ilaahay ku tilmaamay subxaanaه wa tacaala nebi daawuud iyo muuse iyo sulaymaan ilaahay subxaanaه wa tacaala markuu u manno sheeganaya mulkigii la siiyey waxa laga horraysayey cilmiga la siiyey walaqad aataynaa daawuuda wasulaymaana cilma waqaala alxamdu lilaahi aladii fadalana calى kaiiri min cibaadihi اlmu'miniin bale sulaymaan markuu sheeganayay nicmooyinkii ilaahay siiyey wuxuu sheegtay yaa ayuha الnaasu cullimna mantiqa طayr yaa ayuha الnaas cullimna mantiqa طayri wauutiina min kuli shay ina hada lahuwa alfadl اlmubiin bale waxaynu qur-aanka ku aragnay shimbir nebi sulaymaan u sheeganaya aqoon inuu dheeryahay aanu sulaymaan haynin shimbir yaro hudhud la yidhaahdo oo war soo helay dheeraado aanu nebi sulaymaan hayn ayaa wuxuu lahaa axadtu bima lam tuxit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin waxaan soo koobin baan soo koobay buu leeyahy saba meesha la yidhaahdo waxaan kaaga keenay naba yaqiin ah war la hubo cilmiga gebigiisubana waa information waa macluumaad cilmigu maaha wax cusub aad keenayso waa wax alla abuuray oo aad ogaanayso siduu u shaqeeyo aqooni waa inta ah waxaan aqoonta bini aadamku wadoo dhammi wuxuu daraasaynayaa wax ilaahay abuuray siduu u shaqeeyo inuu fahmo kadibna inuu isticmaali karo markaa waa information bay yidhaahdaan waa khabar wuxuu sheeganayaa shimbirka kane khabar inuu hayo aanu haynin nebiyullaahi sulaymaan marka aan soo koobo nusuus aad u badan oo qur-aana ka warramaysa waxaanay tilmaamaysaa ambiyadaasi dowladaha xooggaa haystay inay aqoon iyadoo ambiyadoo dhan ilaahay aqoon guud soo siiyey oo waxyiya haddana mid kale ina iyaga ilaahay siiyey subxaanaه wa tacaala bale waxaa kugu filan aqoonta xataa maadiga ah ama alcilmi الtaطbiiqiya waxay yidhaahdaan applied science cilmiga know-howga isu bedelay qaabka wax loo qabtoo isu bedelay ee theory nadari ka guuray ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya rusul baan soo diray laqad arsalnaa rusulana biاlbayinaat وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد إلهي وحلي الرسول بان صادري بينات عد حجج يا معجزات بان صادري وحن سور راعي كتاب يا ميزان حق يا باطل كلو كلا قرطو وحن ساوي يا لبا إلهي لا يدتك إن عدالتك الصقمان وأنزلنا الحديد با إلهي حديد كلا وسودكي waxay yidhahdaan xadiidku wuxuu ka mid yahay xadaaraadka dhismahooda waxay ku dhismaan ugu horrayn culamada saynisku waxay tilmaamaan xadiidku inaanu ka mid ahayn maadada dhulka oo markay hadda tilmaamayaan
chemically siday u samaysmaan atomisku terrestrialka dhulku inaanu suurtagal ahayn xataa markay lahaayeen wuu karayay in xadiid ku samaysmo xadiidku waa shay meel kale ka yimi baa la isku waafaqsay scientifically xadiidku inaanu ka mid ahayn dhulka waxa yaalla wax meel kale ka yimi inuu yahay fasirintii hore waa anzalnaaga waxay ku fasiri jireen bimacna alkhalq laakiin iminka waxaa la ogyahay inay inzaalkeedii rasmiga ahay tahay sidiisa uu xadiidka loo soo dejiyey taa markaynu dhaafno horumarka bini aadamku ee xadaaraadku markayna intaynan enerjiga soo gaadhin wuxuu kala xoog badnaa sidii birta farsamaynteeda iyo soo saaristeeda loogu kala xoog badnaa ugu horrayn sanaacaadka haqiilka ama sanaacaadka waaweyn ee dunidu may dhismin intii aan productionka iron ku bilaabmin hadday tahay maraakiib hadday tahay treenno hadday tahay daaraha la dhiso daaraha dunidu intaan xadiidkan farsamadiisa saanay loo baranin 4 kama badnayn ilaa 5 oo dhoobadan qawska ee la dhisaa hadday 4 ama 5 engineeringkeedu dhaafo way dumaysay si awgeed markii la ogaaday birtan shubka lagu dhex shubi karo ay soo baxday ayay bilaabantay in tabaqaadkan dhaadheer la dhisi karo ugu horreyn waxaan leenahay marka qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nebi daawuud waalanaa lahu alxadiid baa ilaahay yidhi waxaanu u jilcinnay birta farsamada birta baa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala oo uu ka samaynayay duruucdii iyo wixii lagu dagaalamayey iyo wuxuu ku dagaalgalayay oo dhan nebiyullaahi sulaymaan ilaahay wuxuu ku tilmaamaya cayn alqitr in loo dareeriyey waalqitru في اللغة waxay ku tilmaamaan النحاس المذاب أو الحديد المذاب inuu yahay القطر hadii la yiraahdo القطر hadii la yiraahdo waa roobka القطر hadii la yiraahdana waa min aqطار السماوات والأرض القطر hadii la yiraahdo markaas qaafka la hoos dhigo waxay yiraahdaan waa الحديد المذاب أو النحاس المذاب shubka la shubo naxaasta ama xadiidka waxa nusuusta uu si tilmaamaya waxay tahay technology-gu markuu aqoontu markay practical isu bedeshaabay qiimaha samaysaa dilqarnayn ilaahay markuu tilmaamay waxa lagu tilmaamay inuu lahaa aatuni zubra alhadid hatta idha sawa bayna sadafayn qala anfukhu hatta idha ja'alahu an-nara qala aatuni ufriq alayhi qitra hadid iyo qitr mudaba hadid mudaba ama nuhas mudaba isku daray si uu nimankii meesha lagu xidhayay oo si fiican ugu xidho science oo dhamay wuxuu ka waramaa speed and time bay yiraahdaan technology-ga horumarkiisu waa laba shay waqtiga waxa lagu qabanaya in la dedejiyo iyo makaanka wuxuu qaadanaya in la sii yareeyo sanacadu markasta ay sii yaraato ay horumarto shaygu markasta wax yar sii noqdo la sii yareeyo waa horumaray marka aqoonta cilmigu waxay qabataa laba shay inay space-ka yareyso wax la dhigayo lagu sabaynayo iyo waqtigu waxaas wax ku qabanaya in la tiro badiyo ilaahay markuu ka warramay nabi Suleymaan waxa la tilmaamay dabaylo inay qaadayaan speed samaynaya ka dheeraynaya wixii markaa la watay oo gelina bil sii soconaya in la socday gelina in la soo soconaya waxa ilaahay quraanka ku tilmaamaya cilmiga iyo aqoonta uu leeyahay nabi Suleymaan markuu rabay Balqiis inuu soo qaado oo loo keeno carshigeedii ilaahay wuxuu ku sheegay ifriit min aljin baydaana la soo duulaya oo intaana shaqada ka bixin baan keenaya qabla an taquma min maqamik shaqada inta aad ku jirto ayaan keenaya ilaahay wuxuu sheegay qala alladhi indahu ilmun min alkitab qala alladhi indahu ilmun min alkitab ki aqoonta la siiyay kan ammaan waxa ugu filan in sifadiisa la sheego leena sheegin inuu jin yahay inuu malaa'ig yahay inuu insi yahay mid ku qoladu noqdo toona qiimo badan samayn mayso waxa qiimo samaynaya waa farsamada uu garanayay waxa qiimo samaynaya waa ka sadraadad ilaahay wuxuu leeyahay qala alladhi indahu ilmun min alkitab ki aqoonta la siiyay ayaa wuxuu yidhi intaan ilbirqsi ka yar ayaan ku keenaya kullu hadhihi nusus waxaan rabaa inaanan sii balbalaadhin sharaxa soo koobo waxay tilmaamaysaa aqoontu
weliba markay aqoontu know how isu beddesho markay isu beddesho applied science wax farsamo oo la isticmaalaya markay noqoto inay tahay kullama bini aadamka horumarkiisa iyo dheerayntiisa iyo xooggiisa uu ku jiro. waxaa kaloo la socda bay yidhaahdaan culammadu xirfadyahanimada oo umamka maanta marka la qiimaynayo waxa la qiimeeyaa maalan muwaasiinta ay wax ku qiimeeyaan horumarka waxaa ka mid ah ummadda milyankii qofba imise baaxitho cilmiya bay leeyihiin. waxay kaloo wax ku qiimeeyaan milyankii qofba imise xirfadyahan baa ku jira, technicians imise ku jira. nebi sulaymaan markii ilaahay inooga warramayo boqortooyadiisii aadka u ballaadhnayd waxaa laynoo sheegay xirfadyahanno khatara inuu haystay. wa min ashayaaiini man yaguusuuna lahu wayacmaluuna camalan duuna dalik. shayddaamo farsamo yaqaana buu haystay oo badyo berriba wax ka keenaya. farsamadiisu waxay gaadhsiisanayd islaantii mufasiriintu ay balqiis ku sheegaane haysatay saba markay timi qiila laha dkhuli sarxa baa la yidhi dhismahan gal. falamaa ra'atu xasibatu lujja in meesha biyo ku jiraan bay mooday oo lagu dhacayo, laakiin meesha waxay ahayd sarxun mumarad baa la yidhi, dhisme dhalo laga dhigay oo aanad arkaynin waxa ka hooseeya aan kuugu muuqanaynin siduu yahay. intaasoo dhan waxaan uga dan leeya inaan tilmaamo qur-aanku qiimaha uu siiyey cilmiga ama kiisa aynu iminka maadiga ku sheegna ha noqdo ama kii waxyiga ha noqdee. ummadda muslimiinta ahi waxay maanta dunida kaga jirtaa baynu leenahay meel dambe. sababtuna waxa weeyaan waxay dayacday wixii aadanaha dhismihiisa iyo dowladnimadiisa ka qayb qaadanayay ama horumarka wixii uu ku salaysnaa. waxay yidhaahdaan su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan bini aadamka dunida kor jooga marka la eego muslimku rubuc ka mida weeyaan. afartii qof ee dunida marayaba midbaa muslima. haddana bay leeyihiin marka la eego aqoonta science-ka iyo technology-ga iyo politicalka iyo economicskaba dhaqaale siyaasad cilmi meel dambaynu maraynaa. inaynu meel dambe marayno waxaa kuugu filan ixsaa'iyaad waxoogaa ayaan idiin sheegi doonaa tiro koobiyo. waxay dhahdaan dhaqaalahay dunidu sanadkii samaysaa waa ilaa 60 trilyan. aadanaha kor saaran dhulku dhaqaalaha uu soo saaraa bay dhahaan waa 60 trilyan. muslimku wax 3 trilyan ka yar buu soo saaraa. dunida 60 trilyan baa la soo saaraya dhaqaalaha, muslimku 3 trilyan wax ka yar. waxay dhahdaan dhaqaalaha muslimiintu sameeyaan oo dhan 70 milyan ee faransiiska baa ka badan. bal waxaa laga yaabaa inay ku labanlaabmayso 120 milyan ee jabaniiskii dhaqaalahay soo saaraan iyo tirakoobka caalamulislaam oo dhan carab iyo cajamtiisaba isku dar dhaqaalahay soo saaraan 120kaas nuskeed bay soo saaraan. 120 sanamka caabuda inaynu nuskii la dhaqaalo noqonnaa inagoo dhulka intaa leeg leh oo adduunka intaa leeg jooganaa waa ceeb runtii. ka soo saaray ka dhaqaalo badanta dhaqaalaha Spain soo saarta iyo 12 waddan ee shidaalka soo saara. Spain taayar baa GDP-geedu ka badan yahay. Abu La'la al-Mawdudi Abu al-Hasan an-Nadawi baan u jeedaa raxmatullaahi calayh sheekhi hindiga ayaa dhintay baa wuxuu leeyahay qarnigii 16aad wixii ka dambeeyay muslimiintu su'aalihii cilmiga ahaa iyo sayniska ku saabnaa waa ka seexdeen. su'aalaha metaphysics-ka ka warrama ilaahiyaadka iyo waxa ka warrama ayay ku mashquuleen. saa daraaddeed may ka soo bixin buu leeyahay maskaxihii waaweynaaye lagu yaqaanay. waa sababta keentay buu leeyahay cilmiga iyagu soo saareen intay ilaabeen inay hidiya dhaqankii ku noqdaan iyo baadiyaha wixii lagu hayay. taasi buu leeyahay waa waxa ka dhigay inay addoommo u noqdaan nimanka reer galbeed buu tilmaamaya. marka adduunka la xisaabinayo aqoontu qiimahay ku leedahay maadaama aynu sheegnay iyo horumarka meesha ay ka taagan tahay. مثلا الأمم المتحدة UN qaybteedan UNDP la yiraahdo taqriir ay soo saareen waxa ay ku tilmaamayaan dunida masiixiga ah kristanka sheegata marka la isku daro Yurubteed iyo kuweeda kaleba
boqolkiiba 90 baa wax qora. That means illiteracy-goodu dadkaan waxna qorin waxna akhrinin waa boqolkiiba 10. si kale markaan u tilmaamno waxay leeyihiin 15 waddan oo dunida kristanka ka midi qof aan wax qorini ma joogo. dadkoo dhammi waxbay qori karaan waxna waa akhri karaan. dunida muslimka si haddaynu eegno isku celcelintooda boqolkiiba 40 baa wax qori karta. qiyaas caalam alislaami dunida masiixiga marka la eego bay yidhaahdaan dadkooda mutacalimiinta boqolkiiba 98 baa dhammaystay dugsi hoose. dunida muslimiinta ana boqolkiiba 40 ka aynu sheegnay 50 ka mid ah ayaa dugsi hoose ka baxay. that means 50 ka mid ah dugsi hoosena kamay bixin. waxay yidhahdaan dunida reer galbeedka ama masiixiga marka la isku daro dadkooda mutacalimiinta boqolkiiba 40 baa jaamacad tegay. muslimiintana boqolkiiba 2 jaamacad tegay. boqolkiiba 2 markii horeba boqolkiiba 40 bay waxbarashadoodu ahayd. 40kiiba boqolkiiba 2 jaamacad ka tagtay. qolana marka hore waxbarashadooda boqolkiiba 90 ahayd. 90kiiba haddana boqolkiiba 40 ay heer jaamacadeed gaadhsiisan yihiin. dee wadannada innaga inoo aqoon-yahanka Masar baa ka mid ah boqolkiiba 30 baan waxna akhrinin waxna qorin. 29.6 bay yidhaahdaan. haddaynu si kale u tilmaamno boqolkiiba 30 baan gacantoodu musxafka taaban bay yidhaahdaan. ila garan maaye waxay tilmaamaan ma faqri baa maya faqri maaha ee aqoontan qiimo ku lahayn agteenna. kuuba wadannada faqrigaa bay ka mid tahay. da'yarteeda u dhaxaysa 15 jir ilaa 24 jir qof aan wax qorini kuma jiro. waa kuuba waa waddan faqiira haddii faqri lagu xisaabtamayo. dadkeeda waaweynna boqolkiiba 0.2 ayaan wax qorin. 0.2 waa imisa waa mid 10 meelood loo qaybiyey laba ahaan. boqolkiiba 98.8 ayaa wax qora dadkeeda waaweynna. waxaa la mid ah Brazil, Chile, maxaa la yidhaahdaa Colombia. wadannada yaryara caynkaasa boqolkiiba 97 ama 98 baa wax qora waxna akhriya. dhan kale wax lagu qiimeeyo haddaynu marro caalam alislaami oo dhan 600 oo jaamacadood ba ku yaalla bay yidhahdaan. bilyan iyo badh ama 2 bilyan oo bini aadama 600 oo jaamacadood leh. waddanka maraykan oo qurina marka instituteskiisa iyo jaamacadkiisa la isku daro 5,000 iyo dhowr boqol weeyaan. inta accredited-ka ah inta muctamadka ah ee 4 sano oo qualified ah ayaa 2,618 jaamacadooda. that means hal waddan baa muslimka oo dhan marka la isku daro 4 jeer ka jaamacado badan. muslim oo dhan marka la isku daro bilyankiisa iyo dheeraadkiisa. si kale haddaan u tilmaamo 57 waddan baa muslimku majority yahay. 57 waddan ee muslimka ay maalan jaa'isada caalamiga ee Nobel Prize-ka la yidhaahdo 3 goor bay weligood qaateen. 3 goor ayay weligood qaateen. 3daasina xataa tira maaha. 3da qaatay 3duba markay jaamacaadka levelka hoose caalamul-islaami ku barteen bay ka tageen. 2 iyagoo Maraykan joogay qaateen. jaamacaadka Maraykan bay baxtiga ku sameeyeen. midna isagoo Talyaaniga iyo Ingiriiska joogu baxtiga ku sameeyey oo ku qaatay. 2 chemistry ku qaadatay. waa nin Turkiya iyo nin Masriya. midna waa Bagastani. nasiib darrada ka Bagastaniga weliba waa qaadiyaan isagu. marka waxaynu tirsanayno dhami oo muslim Nobel Prize qaato dhan haddii la isku daro waa 3 nin oo gaalada la joogay ee jaamacadka islaamiga ah ee caalamul islaami wixii ku yaalay waxba may soo saarin. that means 0.05 Nobel Prize dunida la bixiyay intaas aynu ka qaadanay. gaal mulxid oo la yidhaahdo Neil deGrasse Tyson nin madow oo Maraykan ah oo aqoon-yahanada sayniska laga dambeeya ka mid ah. ana mulxid aan ilaahay rumaysanayn alla adriya ayaa wuxuu leeyahay
15 milyan oo yuhuudda dunida joogto oo dhammi buu yidhi waa 15 milyan marka la eego buu yidhi taariikhda 1902 ilaa inta la soo gaadhayo 2010 intii u dhaxaysay 150 Nobel Prize bay qaateen 15 milyan ee dunida jooga yuhuudda waxay qaateen 150 Nobel Prize oo science ah ka hadli maayo kuwa khuraafada ee maxaa la yidhaahdaa عالم الإسلام لقاطه إنه نوبل برايس كانوا قاضنا ما تقاني وسادات بقاطي يهود له شيء عرفات بقاطي يهود له شيء هبلها حقوق ضمر كود قالما شيرين إن أنت إيران هذا حقوق ضد قالمتا بيس كي قاطي نبض قاطي إن أنت يمنية حقوق ضد قالتا توكل بقاطي يرتع عروفته هيدا تدبيتون شركة هيدا باكستان تهيد ملالا بقاطي إنه قوة لين السياح hablaha xuquuqda u dagaalama Nobel Prize ka qaata Peace Nobel Prize nimanka yuhuudda la heshiiya adabka labay muslimiintu qaateen labaduna midi waa Najib Mahfoud awlaadu xaaratina buu ku qaatay ma akhrideen wadi la'aan wuxuu qoray diin la'aanta lagu siiyay mid ka kalena waa Turki isna diin la'aan baa lagu siiyay wuxuu yiraahdaa cultural muslim baan ahay kuwa wax aaminsan meeyay dhaqankaygun baa islaamka ka soo jeeda adabka kuwa laynoo siiyeyna waa kuwa Nobel Prize ka qaateen yahuudo 15 milyanihina marka la eego cilmiga dhakhtarnimada iyo biology-ga wada socda 196 Nobel Prize baa dunida la bixiyay 49 bay yahuudi qaadatay chemistry marka la eego 158 baa la bixiyay Nobel Prize 28 bay yahuudi qaadatay physics marka la eego 158 baa la bixiyay 45 bay yahuudi qaadatay dhaqaale marka la eego 66 Nobel Prize baa dunida la bixiyay taariikhda aynu sheegayna ilaa 2010 laga gaadhayo 28 bay qaateen that means wixii Nobel la bixiyay science ku saabsanaa 15 milyan ee yahuudi boqolkiiba 25 bay qaateen Gillespie oday la yiraahdo Mareykanka أنا جبوبي هذا دوري سجى شجرة لكن وعلماء اللغة دنبية تاريخ العلوم science history وحلي مركان جابوا لي medieval period كوقت قيلوا يقاني العصور الوسطى قرون تدحي الدنيا بقول يصدر عالم باشرو مقعود الله حس كربوا لي وأقويها هي تكنولوجي scientist هي تكنولوجي سحنشري بقول إياه لبعضن كم مدي عالم كمسلم ككيم أدمور يوروب نافر بيكول هاي وبقول إياه صدق كينين الدنيا ده أقونت ده هجامين يجي كما ورما يهدا تشرع جاهد معها وكما ورما يأتيك عليه بقول إياه صدق كينين هجامين يجي الدنيا ده وقت قاسي مدي بالبيريت كيودن أيوب قال كان مريكا وحلي بقول إياه لبعضن بعض عالم الإسلامي كيمي يوروب نافر بكيمي ملحدكii niil sahaaba wuxuu isweydiinaya war siday u dhacday buu leeyahay bilyan iyo dheeraad muslim bilyan iyo bar dadku dhadhow ama 1.3 1.5 waxay doonaan sheegaan intaasoo muslima oo aabayaasho dunida hogaaminayeen oo cilmi ku hogaaminayeen maanta inay wax la'aan dhacda xagay ka timi wuu isweydiinaya waa nin gaaleed markaas wuxuu leeyahay 15 milyan inay inta helaan bilyan iyo bad muslimaan in la waayo iyagoo shalaytana dunida iyagu hogaaminayay waliba su'aasha wuxuu ku daray uu leeyahay dadkii aan taariikh cilmiyeed lahayn iyaga kama hadlayo buu leeyahay kuwan taariikh cilmiyeed bay lahaayeen buu leeyahay waa wawiyadood dadkii aqoonta tan hogaaminayay xagay ka baxday buu leeyahay isagu isu jawaabayaa in kastoo laga yaabo jawaabtiisa inayna wada raacin waxa jawaabihiisa kamid ah wuxuu leeyahay labada kala jar bay isbedelay labada dhaqan bay isbedelay qolana cilmiga ay qiimaysay قولنا علمي قيمة الآن كدكت واي قولنا علمي قيمة يصير قولنا علمي قيمة الآن النقطة تصالحها عالم الإسلام وده وحنا ندير حبق الله جامعات بكوية لا دنيا عربيات بيدا دان جامعات كوية لا بقول كيبا شريعة الضباط ربع قرن يوجد بي قرن قلواترات بالله نسي حين وحبرنا بهذا ينقلون هاي وبقول كيبا شريعة الضباط وح جامعات عربية لا ضي iyagoo jaamacaadkii dunida ugu horeeyay Fas baa ugu horeysa Azhar baa ku xigta Zaytuna ku xigtaan u maleynaya
kollay labada jaamacadood ee ugu horreeya tafaas baa ugu horraysa azhar baana laba ah jaamacatu alqarawiyin iyo jaamacatu azhar iyadoo jaamacaadba dunida haddii la sheego wixii ugu horreeyey hadda dhisana iyagu lahaayeen wixii baaba'e horena iyagu lahaayeen waa qurtaba waa baqdaad waa kan magaalooyinkooda ahayd waa samarqanda maantase waddankan yaryare yuhuuda falastiinta boobtay waddankooda yar 25 jaamacadood higher education baa ku yaalla marka loo qaybiyay bay yidhahdeen milyankii qofba 4 jaamacadood bay helayaan halkii milyan ee yahuud ku nooliba 4 jaamacadood baa u dhisan 250 kun oo qof baa jaamacad leh innagana waxay yidhahdeen caalamulislaami jaamacaad ka dhisan iyo dadka marka la isu qaybiyo 3 milyan ba hal jaamacada leh 3 milyan ee muslima ayaa hal jaamacada leh dhan kale haddaan ka eegno jaamacaadka marka la qiimaynayo waxaa lagu qiimeeyaa waxay tilmaamaan waxay yidhahdaan global ranking sida jaamacaadka dunidu u kala qiimo fiican yihiin maalan waxaa jira 3 group oo wax qiimeeya Shanghai ranking mid la yidhaahdo oo jaamacad ay leeyihiin Chinese waa bilowday 2003 baan filayaa meelahaasi GBS World Ranking mid la yidhaahdo QS World Ranking mid la yidhaahdo iyo jariidadan Time la yidhaahdaa mid ay leedahay saddexdaas haddaad baadho saddexdaba 500 jaamacadood ugu horreeya sanawaadka qaarkood jaamacad muslimba kuma jirto ama xabad ba ku jirta haddaba waa 500 jaamacadood dunida ugu horreeya definitely waqti dhaweyd wixii ka horreeyay 200 jaamacadood dunida ugu horreeya muslimba kuma jiro waxa jaamacad muslim ku taala kuma jirto iyadoo saddexda qiimeed kriteeriyada waxay wax ku qiimeeyaan ay waliba kala gedisan yihiin oo haddii systemkan ay ku soo bixi weydo ay ahayd systemkan kale inay ku soo baxdo waqtiyada qaarkood 500 jaamacadood maraykan oo qura 168 keligii leh ingiriis oo qura keligii 40 leh 20 jaamacadood dunida ugu horreeya 17 maraykan keligii leeyahay saddexda soo hadhay 2 ingiriis leeyahay 10 jaamacadood dunida ugu horreeya 8 maraykan baa leh 2 ingiriis baa leh haddaad eegto 500 jaamacadood dunida ugu horreeya 34 Japan baa leh idan haddaad sidaa u eegto G7ka la sheegaya dee waa jaamacaadkii ugu waaweynaa un dadkii haystay waa dadkii cilmi baadhista sameeyey waa dadkii aqoonta lahaa walidalik ma jecli ceebta muslimka inaan sii baadhbaadho laakiin intaa waxa ka sii daran adigoo aan jaamacad haysan wax tarto oo qiimo samaynaysa imikay dhowr midhoo sacuudigu leeyahay ayaa mid sacuudiga leeyahay boqolka koowaad hadda soo gashay laakiin labada sabjiga ay ugu fiicantahay mid baa af ingiriisiya iyana oo ay jaamacadda sharaada dunida ka tahay af ingiriisiga soo waxay tarayo marka loo eego Malaysia dhowr leh dhowrka 100 jaamacadood ku jira siba 200 jaamacadood ugu horreeya hadda 4 bay leeyihiin Turkigu intan dambu soo socda 2 jaamacadood buu ku lahaa inta waxay nagaga sii daran waxoogaageenii iska rafaadka ahay intay soo saaraan intaas bay haddana qaataan intii lacagta lagu bixiyey la soo helay la soo saaray markay bislaadaanna hijratul uquul baa bilaabantay waxay yidhaahdaan brain drain maskax dareer bay u bixiyeen waxaa la yidhaahdaa waddanka Maraykan sagaashanaadka wixii ka dambeeyey 12 milyan buu qaatay bal 1995kii wuxuu bedelay fiisayaasha uu bixiyaa noocayiin waxay ku tilmaamaan sanadkii 2003 wuxuu bixiyay 200 oo kun oo fiise oo 100 kun oo ka mid programmers qorayiin si kale haddaan soo tilmaamno waxay yidhaahdaan Maraykanku inuu dunida ka horreeyo qura ma rabo ee wuxuu rabaa inta xidigaa in leeg inuu ka horreeyo saa daraadeed midhkaad adigu lacagta ku bixisay soo saartayna wuu iibsanaya wuu qaadanaya waxay yidhaahdaan dhakhaatiirta carbeed ee dunida joogta 50% Yurub iyo Ameerika joogaan dawa carabtan dhakhaatiirta u baahnay
dhakhaatiirta carbeed ee dunida joogta 50% ka midii waxay degan yihiin north america iyo maxay iyo yurub bay degan yihiin waxay injineer lahaayeen oo dhan boqolkiiba 23 iyana galbeedkay jiraan waxay culamo khubaraa lahaayeen boqolkiiba 15 galbeed bay jiraan ingiriis oo qura dhakhaatiirta joogta boqolkiiba 34 baa carab ah waxa ingiriis ka dhakhtara boqolkiiba 34 baa carab ah that means intii lacagta lagu bixiyay ama yurub loo diray la soo saaray ama meelahan ba lagu camcamiyay la soo saarayna intiina lacag bay ku qaateen oo dib bay u iibsadeen saadaradeed waxay dhahdaan ardada caalamka carbeed ay u dirto inay jaamacaadka reer galbeed ka soo baxaan boqolkiiba 54 baan dib u soo noqonin xamala shahaadaat alculya bay dhahdaan shahaadooyinka sare culamada sidatee carbeed sanadkii 2000 marka la tiriyo 450,000 baa joogay galbeedka maxaa soo hadhaya markaa haddii marka hore laga aqoon badnaa oo laga jaamacada fiicnaa oo laga wanaagsanaa marka dambana waxoogaaga yar aad soo saarto gaal malaaxidada ka mid ah dr mishia kaku la yidhaahdo asalkiisu waa indha yar laakiin waa maraykan ayaa wuxuu leeyahay silicon valley ma jireen buu leeyahay haddaanu h1b visa aanu jirin buu leeyahay visa jira la yidhaahdo h1b oo maraykanku bixiyo haddaan fiisahaasi jirin buu leeyahay silicon valley ma jireen waayo dunidu maanta waagii hore shirkadaha dunida ugu lacagta badan leh 10 shirkadood ee dunida ugu lacagta badan leh waxay ahaan jireen shidaal iyo gawaadhi 10 kuba shirkadaha shidaal ka shaqeeya iyo shirkadaha gawaadhida imika mid ama laba kaga jirta 10 shirkadood ee dunida ugu lacagta badan leh aqlay ku xoogsadeen ee commodity ba ma haystaan qalab ma jiro waa programmiya wax la mid ah waa Amazon shirkadda ugu xooga badan leh waa gaalkan Windows la maxaa loo oran jiray Bill Gates waa gaalkan kale imika gawaadhida iyo wax soo saaray cirka wuxuu diray isna maxaa la yiraahdaa isku soo dar waa kan Facebook oo samaystay waa Google qolada samaystay labada arday samaystay dhammaantood waxbay qorqoreen una program ay samaysteen wax kale ay yaqaaniin ma jiro program ayaa dunida billionaire loogu yiri haddana laba shirkadood ka mid ah hadii dhaqaalahooda la isku daro caalamul islaami oo dhan waxay soo saaraan bay ka dhaqaalo badan karaan laba shirkadood ka mid ah aqoontu xooggaasay dunida leedahay aqoontu xooggaasay dunida leedahay oo dadkii commodity waxay dhaahdaan khamka materialka khamka dunidu kuma horumarto ee manufacturing bay ku horumartaa ma jira bay leeyihiin wadan dunida hogaamiyay waan industry lahayd wadan macdan soo qoda ama shidaal soo saara ama mining soo saaro horumarsan dunida ma jiro ninka soo walwalaaqo baa horumarsan kaasoo baa dunida ku shaqaysto xoolaheeda haysta kan laakiin ceelasho ay ku yaalina laga soo qodaa waa un ceelka laga la baxaa wixiisa qiimo ma samaynayo saawgeed ay wax isku dayeen maraykan maanta gaalkaasi Mishaya Kaku wuxuu leeyahay science PhD waxa sameeyay maraykan degani boqolkiiba 50 dabad bay ku dhasheen maraykan uu ku dhalanin that means wixii aqli dunida jiray wuxuu isku dayay hadduu wax barasho ku keeni kari waa inuu lacag ku keeno oo dabeetana uu isagu kiisa wax ku baro afrikadan madoowa taqaaniin waxay dhahdaan 20,000 oo caalim oo ay leedahay bay sanad walba Yurub ka qabtaa dabeetana bay dhahdeen khubaro la talisa si ay u soo kireystaan 4 bilyan oo lacag oo kale ku bixiya qiyaas inaad caalim soo saartaa marka hore mise bilyan buu kugu joogaa markii la soo saarayna kuwaas qaatay sanad walba 20,000 bay ka qaataan khubaro waxaan uga daleeyay markaa haddaad maqasho dunaa horumartay dhidid bay ku horumareen iyo waxbarasho iyo wax soo saar bilaash kumay horumarin cid inta iska seexatay badhaadhay oo horumartay ma jirto cid aqoon adeegsatay ayaa horumartay innagana waxba inagama xigaan inaynu horumarno waxba inagama xigaan
go-aankeenna inaga xiga inaynu shacab iyo dawlad iyo qiyaadaba inaynu yeelanno go-aan ah inaynu aqoontu inay qiimo tahay aragno cilmigu inuu wax yahay innaga cilmiga waxuma aragno haddii marka aynu rabno horumar oo qofka qof noloshiisa difaacanta iyo dalkiisa iyo dadnimadiisa ka dhigaya waxay ku xidhan tahay sidaynu waxbarashada u qiimayno nolosha adduune horu martayna waxbarashay ku horu martay alaab la soo iibsadana laguma horumaro daara dhaadheer oo la dhiso tagaal la keeno daar dheer kuu dhisay waxaa laguma horumaro dad kolba carabi tidhaahdo daarta dunida ka dheer ugu dheer baanu dhisaynaa iyaga iyo daarahoodaba dad baa isku leh iyaga iyo daarahooda iyo shidaalkoodaba dad baa isku leh waxaa la yaabantiin maxaa farta loogu yeedhaya maxaa waxaan laynoo leeyahay maxaa caynka de waa laynaga xoog batay waynu seexannay de haddaad seexatana ogolow soomaalida mahmahadeedu maxay ahayd miskiin baa miska la fuulale bay idhahdeen adduunka cid isuma naxdo naxariis ma jirtee waa ninkii wax iska dhiciya unbaa dad noqda soomaaliya way jabtay maxaa dunida noogu soo oryi wey war waa lagu sii korayaa cid ku soo kicinaysaa ma jirto mid gaal professor jooga Cambridge University oo kuway ka dambeeyaan ayaa nin sheekho Soomaaliyeed oo ardada meesha wax ka barataaba wuxuu yidhi waxaan weydiiyey su'aal ah war waddankaygi waa kan degi waayo idinkuun baa ku jira maxaa naga rabtaan intuu dib u jiifsaday buu cabaar fakeray ayuu wuxuu yidhi wixii laydinla rabaa weli laydin yeelsiin maa laydin gelgelaya intaa haa ka odhanaysaa wixii laydinka rabay baan weli laydin yeelsiin buu yidhi tii baydan weli aqbalin markaa inta taa ka gaadhaysaan waa ahaanaysaan buu leeyahay in caynkaa laydin wado calaa kulli xaal warkaygu wuxuu ku kooban yahay aqooni haddaad aakhiro doonaysana facalayka bilcilm haddaad adduun doonaysana facalayka bilcilm وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين